asxaabta iyo habeen wanaagsan waxaa saacado kooban ay ka dhiman yihiin kulanka u dhexeeya xulka qaranka Monaco iyo xulka qaranka Faransa. waxay xulka Monaco sameeyeen wax taariikhda ku cusub maadaama ay yihiin xulkii ka soo jeeda qaaradda Afrika ee ugu horeeyay ee soo gaara semifinalka koobka adduunka. waxaa ognahay saaxiibay in caawa ay ka hortagi doonaan xulkii kusoo guuleystay koobka adduunka 2018 ka dhacay dalka Russia sanadkaas oo xulka Faransa ay kusoo qaadeen si awood ah. xulka Faransana waxay rabaan in markii labaad oo xiriir ay gaaraan finalka koobka adduunka. xulka Monacona waxay rabaan markii koobaad ee ugu horeysay ay qaran ka socda qaaradda Afrika oo gaaro koobka adduunka in ay tagaan finalka koobka adduunka halkaas oo ay kula bartamaan xulka qaranka Argentina. xulka Faransana waxa uu rabaa riyada ay ku riyoonayaan ciyaaryahanada iyo dhammaan jamaahirta xulka Faransa inay markii labaad xiriir ay ka guuleystaan koobka adduunka maadaama ay haystaan laacibka lagu magacaabo Kylian Mbappe oo aan laacibeysan cidna hor istaagi karin koobka adduunka sanadkan ka socda wadanka Qatar gaar ahaan magaalada caasimadda ah. marka saaxiibayaal wax weyn ayaa laga filayaa caawa inuu halka ka soo baxo xulka Monaco oo ognahay in daaficoodu aad u adag yahay sanadkan maadaama aan hal kulan aan gool laga dhinin. xulka Monaco waa xulka kaliya aan wax gool ah hal ciyaaryahan oo ka dheelaya koobka adduunka uu gool ka dhalin. waxaa ka dhashmaday hal goolkaasna wuxuu ahaa gool gool ah uu ka dhashay daafaca xulka Monaco. marka daafacan saan u adag oo saas u dhibaatada badan Kylian Mbappe iyo Alfie Giroud iyo laacibka lagu magacaabo Antonio Griezmann ma burburin doonaan daafaca xulka Monaco mise Monaco ayaa hal iyo eber sidii lagu yaqaanay ama sidii caadada ahayd kaga reeban doonta xulka qaranka Faransa oo sanadkan loo malay inuu yahay qaran aad u adag maadaama uu yahay qaran 2 sano oo isku xigtana marna tagay final oo koobka qaaday hadeerna semifinal loona baqayo inay ku guuleystaan koob ka socda wadanka Qatar. waxaan caawa anigu guul u rajeynayaa wadanka Monaco oo wadan islaam ah oo ka soo jeeda qaaradda Afrika. waxaan leeyahay Monaco waxaan leeyahay caawa faataxada iyo quraankaba xaqiina ay ahaan doonaan insha Allah qarankan ku socda quraankana waxaan rajeynayaa guul iyo gobonimo. waxaan leeyahay insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka soo dejin doontaan koobka World Cup adduunka qaaradda Afrika. waa ku mahadsantiin saaxiib la jaanqaadkiina.